الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الله ميل بعجبتي وإذا سلام يا سلام كدب ما أنتم حلو كثير أنا كشكي إن شاء الله. خصوصا آدم جعل الله والله خصوصا وويل يرى طالب العلم ويل يرى طالب العلم ما حمدها أيو ويلكي قاعد درن خبر يعني كيف خير أيوها العقب خصاص موسى الهيثم قاعد درن باخبطي بنانكو وادوحو يري بل سورة سوحة عنسد سيدو وراديني أيوه أركي بير تاسوكا بحاي تفاح يعني وحيالك الدول وقدرة ده عنق جيتكي وأركي هل حبو تفاح يوكسو غوست هل حبو تفاح يوكسو غوست تفاح يوكسو غوستي أيو عني مركو عني أيو سو حسوستي تفاح عني إنو سنأسيق لهاي إنا بيرت ضد إليهين بلا أمر أو إسكعوني مركبو يري والله خلط باس سميسي أسيقو نحي ووحي كحماضي إلا وحو أهويل الله سبحانه وتعالى آد وبخ ويل تقوى له إيمان له الله سبحانه وتعالى كحرن صلاة دي وحول بكحرن الله سبحانه وتعالى أمري ويل كحير وإنا رادساء نينك بيرتانس كلها ماشي مقالدي حافظي أيو دكويدي وحيري بيرتانس كله ويلك وحلوت المام بيرتنو نين ليهي gurigiisa loo tilmaamay gurigii tagay marka albaabkii uu gargaraacay salaamu calaykum ayuu ku yiri albaabkii marka laga furay salaamu calaykum ku yiri oday baa ka furay wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh lagu yiri markaas wuxuu yiri adeer beertaas adiga iska leh ha ayuu yiri adeer wuxuu yiri beertaas waxaan ka cunay hal tufaaxi markaa cunay kadib ayaan soo xasuustay beerta inaysan teedana ahayn bila amarna cunay marka waxaan rabo inay cafisid sida Allah subhanahu wa ta'ala maalintii yawm al-qiyaama uu sanay weydin odaygu wuxuu yiri kuma cafinayo wallahi kuma cafinayo maalintii yawm al-qiyaama Allah subhanahu wa ta'ala uu ku sheegi doonayo albaabkuna ka xirtay aniga hay subhanallah yani هو هل تفاح بس أذر وهل تفاح يعني وهل تفاح بس وحاسن وصمينا الباب كي حرتي عنق ماشي اسكفر يستي ماشي الباب كوست اسكفر يستي أصيو والولسن نحسن واستغفار قلي الله سبحانه وتعالى إنه من حياة طول ودم بداف وديستي ظهر كي لعصر كي ماشي فدي ظهر كي لعصر كي ماشي فدي كذب وأبي هذا الباب كفري ورماشي مولية في الإساوية ماشية في الإساوية كاجتجي ها أديروا يري والله كمان تجي ماشي أنو إلى يقع في السمو يعني أضيق وياوي ويا يوكي وقعسنا يا وقعسنا يا يري ويلكي وفرحي قلب وفرح لكن أضيق وحوك جوا بعدنا لكن هل شرد هل مت بنقعسنا يا دا سمس حاسمين يا يري أضيق وحو يري وإنا قبل يدا قرستا يعني إنا قبل يدا قرستا كم ويلك فرحي ويلك هو فرحي وحو يسيري وذيك تفاح باك سعنتي خلط باك قشي حتى أذيك خلط كسي قلي مهدنة وحو ربا إنو قبل يسي قدروا يعني الله أكبر وحوين الله نغطي ما شاء الله آدم فرحي أذي رواهي يريد لمران وقرسان كرا قبل هذا أبيه أضيق يا وحو يرى هذا لكنه يرى هاي ويلك وحكي جوا هاي قبل يدين لما لهن أخوارت بيجا ما لهن أي وحكم مقش وقونا ما لهنو أي كسعته سبحان الله أنا جسر تجلى للنخوة هذا بيجا ما لهن وحكم مقش إن لما لهن وحكو أركته لوغو مالها ku socoto sideen isku fahmeena yaani wax laga naxo kana xubin subhanallah odayga wiilkii wuxuu ku yiri ka soo fikir intaas soo yiri hadartira ku cafiyo wiilkii uu soo laabtay go'aan buu soo gaar Allah subhanahu wa ta'ala ayuu kala saartay wuxuu yiri adeer waayahay gabadha waan guursanaya ayuu yiri guurkii la dhigay xafladii la dhigay
kadib baa markii xafladii dhamaatay waxa lagu yiri wiilkii xaaska qolkaas bay ku jirtaa oo tagay wiilka qolkii uu tagay sariirtii fariistay xaaskii sugaya marka baa gabar soo gashay gabadhii waxay ku tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wiilkii wuu naxay wuxuu yiri yaa tahay camal waxay tiri xaaskaagan yaahay ma la yaabtay ku tiri markaas wuxuu yiri xawliyagu waayo yiri oo aabaha wuxuu ii sheegay maxaa ahayd yiri waxa adiga qof hadli karaaba tahay oo arki kara oo socon kara waa maxay xubaantii ugu sheegay waxay ku tiri horta maalinta koowaad uu aabihii ku arkay karaal gelinaysa waxa sameysay isla maalintaas ayuu go'aansaday aabahay inuu u kaadaro markuu taqwadaada arkay ayuu go'aansaday inuu u kaadaro wiilku wuxuu yiri way haduu taqwada arkay muxuu marka been uu sheegay indhaha al lahayn oo socon karayn oo hadli karayn horta waa idinka booday wiilku wuxuu markan gabadha quruxdeedan arkay yaani waa sidii gabdhihii xuur lacaynta ayuu yiri aad u qurux badneeday quruxan la soo koobi karayn ya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu hadiyad u siyaaray kadib markii gabadhii uu ku yiri yaani muxuu aabaha beenta igu sheegay markaas wuxuu ku tiri aabahay runtiisa ay ahayd markuu ku lahay gabadheeda indha malahan waxay tiri waxaan ka indha la ahay wax walba Allah subhanahu wa ta'ala xaraan ka dhigay kuma dayo indhahayga wax xaraan Allah subhanahu wa ta'ala caragelinayo Allahu akbar markuu ku yiri aabahay dhaga malahan gabadheeda wax ku maqasho waa runtiisa tiri dhagahayga kuma maqlo wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku farxaynin quraankan ku dhageystaa waxyaalaha Allah subhanahu wa ta'ala farxa gelinayo ba ku dhageystaa markuu Allah markuu aabay ku dhahay yaani gabadheeda lugu ku socoto malahan waa runtiisa tiri lugu kuma aado meelna Allah subhanahu wa ta'ala ogolaan Allahu akbar والخير يعني خسران waxaan ka faa'iideen hadday noqdo dhinaca waalidka hadday noqdo dhinaca yarta wiilasha hadday noqdo dhinaca yarta gabdhaha mid koowad wiilka wuxuu ahaa mid taqwada leh mid Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran mid Allah subhanahu wa ta'ala ka baqo tufaaxa uu cunay ayu Allah subhanahu wa ta'ala ku soo xasuustay Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu hadiyad ka dhigay gabar aad u qurux badan oo diin leh oo taqwa leh adiga hadda noqotid Allah subhanahu wa ta'ala qof hadda noqot qof taqwa leh Allah subhanahu wa ta'ala kuma cilaynaa wala Allah subhanahu wa ta'ala waxa doonayay u siinaya sidoo kale gabadha waxay gabar xaraam daaban heesaysan dhageysan meelaha xun lagu heedo ku aadin indheeda waxyaalo xun ay ku daawan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu hadiyad kaga dhigay wiil wanaagsan oo taqwa leh Allahu akbar wiil wanaagsan oo taqwa leh ina waalidka daan fiirno aabihi maalinta koowaad markuu albaabka wiilka ka furay oo yiri adeer iiraal noqo tufaaxa soo cunay aabihi muusan fiirinin wiilkaas qabiilku ka dhashay kuma ayaa tahay muusan oran xagee ka dhalatay magaalada ka imaaday mariij baa tahay lacag la tahay muusan oran aabuhu wuxuu arkay inuu wiilka taqwo leeyahay waalidiinta waxaan kula talinayaa ha fiirin wiilka gabadha soo doonay wuxuu yahay fiir haduu taqwo leeyahay akhlaaqi iyo diin u leeyahay u door gabadhaada wiil wanaagsan marka labadan isguursadeen hadda qisaan ka sheekeenayo gabadhu markii wiilka isguursadeen wiil bay dhaleen Allahu akbar wiilkaasi waa ma taqaana Abu Hanifa waa ma garanaysaa afarta madahib mid kamid ayuu ahaa Allahu akbar daaci waa ka adduunka maanta caan buu ka yahay Abu Hanifa buwaagtiisa saas oo akhrisanayna madhab dhan weeye ka war marka Allah subhanahu wa ta'ala taqwadiisa araacdo Allah subhanahu wa ta'ala ka baqdo والله الله سبحانه وتعالى كم علينا الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا